بسم الله. magacaygu waa Cabdullaah Faarax Maxamed. galabta waxaan arkay bishii markii koowaad aniga arkay markaan arkan waxa tusay raggan oo ila socday marka sidaas waaye bishaasna waan arkay markaan xaqiijiyay anigana raggan kalaan tusoo eri bal adikuna arka sidaasaan hoosh ay ahayd waxaan joognay degmada Cadaado gaar ahaan xaafadaas galbeed. magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed. galabta waxaan aragnay bishii waxaan ay tusay abti waa socon saddexdeenu abti ay tusay bishaasna waa xaqiiqo ay xaqiiqsan tahay aniga abti markuu tusay ka bacdina waxaan tusay yarkaan la dhasho Ismaaciil aan rabay inuu si xaqiijiyo waa ka bisha inaad aragtay marqaati ma kartaa bishaas inaan arkay waa ka marqaati fur karaa waa ka marqaati ah waxaana joogay Cadaado xaafada galbeed. magacaygu waa Ismaaciil Cabdi Maxamed. waxaan arkay galabta bishii Shawaal waxaana ay tusay ninkan walaalkeeya asna waxa sii tusay ninka abtigeeya oo marka hore arkay waxaana ku aragnay aan ku sugannahay magaalada Cadaado dhinacaas galbeed xaafada galbeed ummadda islaamka meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay taqabbal Allahu minkum wa minna salihal a'mal. ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaanteen acmaashan naga aqbalo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak. galabtay oo habeen jimcaha uu soo gelayo caaway oo habeen jimca ah salaada maghrib markaan tukanay oo aan afurka ku jirnay ayaan raggan walaalaha oo hadda idinka hor muuqday nin ka miduhu nin ila jooga soo wacay waa ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Maxamed oo gudoomiye hore godin laba oo dhalay waa Maxamed Cabdi Macalin Qase wuxuu u sheegay bishii inuu arkay yarkii ila joogay ay dhiibay nin la yiraahdo Cabdishakuur Macalin Cabdullaahi nin khiyaar oo asaguna dhalinyarada magaalada ah oo i'tikaaf ban wala jiray waxaan iri ninka ku soo wacay markii hore intuusan ii dhiibin waa nin see ah wuxuu ii sheegay nin macquul ah oo wanaagsan inuu yahay sida hadaba nooga muuqata waan weydiiyay bisha saad u aragteen aan iri wuxuu ii sheegay abtigiis inuu tusay asaguna yarka kale walaalkiisa uu tusay sidaasna ay bisha ku wada arkeen. ragga kale markaas waa ay kala tageen nin walba teleefankiisii ka qortay ninniman u wacay nin walba oo ragga ka midana waxaan lahaa marqaati ma ka tahay bishii Shawaal inaad aragtay nin walba lafdul ishaad marqaati inuu ka yahay ayuu ii sheegay waana ku kalsoonaanay. waxaan rabnaa inaan halkaan ka sheegno in walaalaha kala ah Cabdullaahi Faarax Maxamed iyo Maxamed Cabdi Maxamed Ismaaciil Cabdi Maxamed inay noo xaqiijiyeen inay bishii galabtay arkeen bishii Soonfur ayagoo ku sugan magaalada Cadaado waaxda galbeed inay istuseen si jamacana ay u wada arkeen oo isku tuseen intaas ayaan ayagii ka xaqiijinay culimadii ayaan u yeernay culimadiina waxay xaqiijiyeen wiilashaas inay yihiin niman wanaagsan oo ahludiin ah warkoodana maaragtay la ictimaadi karo laguna ciidi karo sidaas daraadeed waxaan wacanay meelo kaleeto oo Soomaaliya ka mid ah oo Buulobarda ay ka mid tahay waxaan wacanay dawladda Galmudug sidoo kale waxaan la hadalnay wasaaradda awqaafta ee federaalka dhammaantood waxay noo sheegeen in meelo kala duwan bishii laga arkay sidaas daraadeed waxaan iclaaminaynaa inay berri tahay maalinta koobaad ciidul fitriga waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. waxaan leenahay dhammaan inaan maaragtay dadkaas muslimiinta ah ee arkay inaan rumaysano oo aragtidooda aan ku iidno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka reer Cadaadana waxaan u gudbinaynaa inay berri ciidaan haddii Alla idmo.